kudhawaad 200 oo qoys oo danyar oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa maanta loo qaybiyay deeq lacageed oo soo dhiibay maamulka gobolka Banaadir waxaana goobjoog ka ahaa maamulka degmada Beledweyne xogayaha gobolka Banaadir iyo xubno kale intii la siisay ajli xisanaad Allah ka siiyo lacag boqolaha helna wixii siiyeen ajli xisanaad Allah ka siiyo anaguna u mahad celinayna ilaahay idankiis ayagana qaar iyo fal iyo ijaabo ilaahay ka baryayna ilaahay qaar qabanna siiyo malabax nagana 500 lacag hayna siiyeen waa ugu mahad celinayna qaar iyo fal ijaabo ilaahay ka dhigo alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadde saaki aniga oo indhoolo ah ee soo galay gobolka waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta gobolka dhammaan iyo ciddii deeqdan noo fidisay aan u mahad celinayaa kor Allah ka yeero ajri xasanaadna Allah ka siiyo ciddii deeqdan noo fidisay ajri xasanaad Allah ka siiyo annagana haddii ilaahay raali ka dhigo dhacama shafah laaga dhigo alif Allah noogu daro amma xaliisi lacag 500 liisi tilifin ajri xasanaad Allah ka siiyo dhacama shafah Allah wa ma tiin fina kalmaad Allah wa dubayni meel sana Allah mari meel sana marka meeqa carruur ayaa haysata adiga carruurana 12 haystaa haye noloshoodu waa sidee marka noloshooda nolol xun baan ku haysanaa maanta u leeyahay xali wax ilaahay qabno waxaan haysanaa wax kalmina ma laha aan iskaan darasta biyo baxo iyo colaad meel aan wax laga saaray wax kale ilaahay kab iyo karin waxaan haysanaa ma laha waxaan ku saxana ma laha waxaan oo biyo iyo biyaha iska qaad wax cad oo madow haysanaa ma laha xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi ayaa TV-ga bulshada u sheegay in deeqdan lacagta loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool magaalada Beledweyne isla markaana ay ka faa'iideysteen in ka badan 200 oo qoys oo danyar ah waxaan ka socdaa xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxaan ka imid gobolka Banaadir anigoo u imiday kana soo qayb qaadanay walaalaha tabaalaysan gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne biyo baxada iyo dhibaatooyin kale ay ku soo absadeen waxaan soo gaarsiinay deeq yar tahay haddii la barakaysto way badan tahay oo 120 milyan oo shilin Soomaali oo ugu soo deernay dadka tabaalaysan inaan qaybino sida arkiiseen dadkii ugu liitay magaalada maamulka gobolka Banaadir gobolka Hiiraan degmada Beledweyne lagu soo ururiyay xaruntan oo aan gaarsiinay qof sidii wax u gaari karto ilaahay u barakeeyaan leeyahay ajri xasanaad Allah ka siiyo gobolka iyo dadka soo dhiibay iyo sida wanaagsan ee maamulka magaalada Beledweyne iyo dadka yani ugu deeqaan hadba wixii soo gaaro oo deeqa ah oo ka yimaado dowladda dhexe ama maamulada kale ee gobolada kale meeqa qoys ayaa ka faa'iideystay deeqdan waxa ka faa'iideystay ilaa 200 oo qoys ayaa ka faa'iideystay oo haween iyo dad maati u badnaay iyo magaalada xaafadeeda dhan laga soo waday duqa degmada Beledweyne Cumar Aadan Ibraahim Baadi oo la hadlay TV-ga bulshada ayaa u mahad celiyay maamulka gobolka Banaadir oo maanta deeqdan lacageed soo gaarsiiyay qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Beledweyne runtii waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir oo ka socda xogayaha gobolka Banaadir deeqdan yar ee soo gaarsiiyeen aadna noogu badan runtii 120 milyan oo qaybna 4 xaafado masaakiinta danyarta ku nool mar labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka Banaadir oo ku baasiyihiin waxaan u rajaynayaa khayr waxaan leeyahay waxaan idin rajaynayaa khayr iyo horumar gobolka Banaadir Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne